Tani waa daqiiqadii la shaaciyay in wiil 56 jir ah ee hogaamiyaha sare ee Iiraan uu noqday hogaamiyaha cusub ee dalka. Taageerayaashiisu waxay sheegaan inay ku arkeen aabihiisa. Sanadka markuu ahaa 1979kii, Shaahi Iiraan Maxamed Raazi Pahlavi waxaa afgembiyey Ayatollah Khamenei. Aabaha Mujtaba Ali Khamenei oo ahaa saaxiib dhow oo Khamenei ah, si degdeg ah ayuu ugu kacay nidaamka siyaasadeed ee cusub, wuxuuna markii dambe door weyn ku yeeshay qaabaynta mustaqbalka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Mujtaba wuxuu ku soo koray xilligii kacaanka iyo dagaalka. Isagoo 17 jir ah ayuu aaday jiidda hore ee dagaalka Iiraan iyo Ciraaq, xilli aabihii uu ahaa madaxweynaha Iiraan. Mujtaba ciidankii uu la dagaalamayay waxay markii dambe noqdeen waxa loo yaqaan Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC. Maanta waa hay'adda militari ee ugu awoodda badan Iiraan. 10 sano kadib, xiriirkaas ayaa noqday mid aad u muhiim ah. Dad badan waxay sheegayaan in daacadnimada ciidanka ay ahayd arrin muhiim ah oo sababtay in Mujtaba loo doorto hogaamiyaha sare ee saddexaad ee Iiraan. Muddo dheer Mujtaba waxaa loo arkayay qof awood badan oo ka shaqeeya gadaasha, isagoo door ku lahaa magacaabidda saraakiil sare iyo qaabaynta hay'adda amniga ee Iiraan iyada oo loo marayo xafiiska aabihii. Maalmihii ka horreeyay doorashadiisa, madaxweynihii Mareykanka Donald Trump ayaa ka digay in kor u kaca Mujtaba uu noqon doono mid aan Washington aqbali karin. Laakiin dad badan oo ku jira siyaasadda iyo militariga Iiraan ayaa hadalladaasi u arkay fargelin dibadeed, taasoo sii kordhisay taageerada loo hayo magacaabistiisa. Aabaha Mujtaba, hooyadii, walaashii, xaaskiisa, wiilkiisa iyo qaraabo kale ayaa dhawaan lagu dilay duqeymo ay fuliyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Israa'iil. Dad badan waxay aaminsan yihiin in khasaarahani saameyn ku yeelan karo fikirkiisa, isla markaana laga yaabo inuu Iiraan u riixo wado dagaal badan. Laakiin qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa leh wax ka duwan ayaa dhici kara. Iyagoo wajahaya cadaadis dagaal iyo go'doon caalami ah, waxay sheegayaan in nidaamka Iiraan uu hadda haysto 2 doorasho oo adag. Midda koowaad oo ah inuu burburo ama inuu isbedelo. Weli haddaadan muuqaalka like saarin la garee si uu dad badan u gaaro, siina share garee. Maadaama Mujtaba uu xambaarsan yahay dhaxalka aabihii iyo kacaanka Iiraan, qaar waxay aaminsan yihiin inuu leeyahay sharciyad uu ku samayn karo isbedelo adag, isagoo aan lagu eedayn khiyaano kacaan. Laakiin waqtigu laga yaabee inuusan dhinaciisa ahayn. Mas'uuliyiinta Israa'iil ayaa marar badan ku hanjabay inay beegsan doonaan qof kasta oo bedela hogaamiyihii sare ee Iiraan ee la dilay. Si kastaba, caqabadaha kuma koobna khataraha dibadda. Dad badan oo Iiraan ku nool waxay magacaabistiisa Mujtaba u arkaan mid qoys ahaan loo dhexlo, iyagoo leh kacaankii riday boqortooyadii hore wuxuu hadda soo saaray boqortooyo cusub. Xilli ay jiraan dagaal, cunaqabateeno iyo kala qaybsanaan bulsho, badbaadada nidaamka waxay ku xirnaan kartaa in la xiro farqiga u dhexeeya dowladda iyo shacabka. Sida uu dhigayo dastuurka Iiraan, Mujtaba waa hogaamiyaha siyaasadeed ee ugu sarreeya dalka iyo sidoo kale hogaamiyaha diimeed ee ugu sarreeya, oo ay raacsan yihiin malaayiin Shiico ah gudaha Iiraan iyo dibaddaba. Aabihii wuxuu xukunka la wareegay dhowr bilood kadib dhammaadkii dagaalkii burburka badnaa ee Ciraaq. Dhammaadkii 1980yadii, Mujtaba wuxuu xilka qabtay xilli aad uga khatar badan xilligii aabihii. Haddii uu dalka midayn karo, dagaalna joojin karo, oo Iiraan dib ugu furi karo adduunka, ama uu horseedi doono iska hor imaad iyo go'doon ka sii weyn. Arrintaas ayaa go'aamin doonta mustaqbalka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Warbixinta ay diyaarisay Al Jazeera, Maahir Baro.